Dowladda Soomaaliya iyo dadkeedu waxay muujiyeen ballanqaadyo cajiib ah oo ku aadan dib u habeynta dhaqaalaha sanadihii ugu dambeeyay. Aqoonsiga dadaalkan laga bilaabo maanta in ka badan 100 dal oo ay ku jiraan dalal badan oo dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa oggolaaday inay ku tabarucaan lacagta IMF ugu baahan tahay inay deynta ka cafiso Soomaaliya. Marka maxaa xiga oo loo baahan yahay inay dhacaan? Shaqaalaha Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika waxay u baahan yihiin inay sugaan ansixinta guddiyahooda si loo masaxo deynta Soomaaliya. Isla markaana deyn bixiyaasha kale waxay u baahan yihiin cafinta deynta. Tillaabooyinkan ayaa la rajeynayaa inay soo gabagaboobaan dhammaadka bisha Maarso, taasoo Soomaaliya u oggolaanayso inay meel muhiim ah ka gaarto go'aanka hibig. Taasina micnaheedu waxay tahay in deynta Soomaaliya 3/2 meel ay ka yaraan doonto, waxayna sidoo kale ka dhigan tahay in xiriirka ka dhexeeya hay'adda IMF uu caadi ku soo noqon doono, iyadoo loo furi doono marin ay ku hesho ilo cusub oo kobcinta dhaqaalaha ah. Haddii Soomaaliya sii wado go'aankeeda dib u habeynta ah, waxay gaari kartaa barta dhamaystirka 3 sano gudahood, waxaana goortaas laga masixi doonaa ku dhowaad dhammaan deymihii lagu lahaa. Abuuritaanka fursad dhab ah oo Soomaaliya ku bilowdo dib u qaabaynta nolosha dadkeeda.